madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Cabdixakiin Cabdilaahi Cumar Camey ayaa walaac baan waxa uu ka muujiyay xaaladda dhaqaale ee maamulkiisu uu cagaha la galay xilligani isagoo oo Cabdixakiin Camey ku sababeeyay dagaalada ka socda deegaanka Tukaraq waxaanu mas'uulkani xilli uu munaasabad uu ka qayb galay si cad warbaahinta ugu sheegay in xilligani uu maamulkiisu la dhuutiyayo xaalad dhaqaale darro oo soo wajahday markaana waxa uu walaac baan ka muujiyay socoshada dagaalka Tukaraq ee u dhaxeeya ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland waxaanu qiray madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland in dagaalada socda ay baabiyeen dhaqaalihii Puntland sidoo kalena waxa uu hoosta ka xariiqay in xiisadda colaadeed ee ka jirta deegaanadaasi haddii ay sii socoto inay saameyn ku yeelan doonto maamulka Puntland iyo ciidamada ka jooga deegaanka Tukaraq dhaqaale darrada baahsan ee ku habsatay xilligani tani waa iska leecaysaa hadda dhaqaale laga sugaa inaanu jirin $1 25 cents qaaliheedu maanta markaan runta idiin sheego adduunka waxa dawlad weyn burburiya Mareykanka waad ka waraysaan markuu qaaday dagaaladii Ciraaq iyo uu ku qaaday Afghanistan heer buu gaaray gurigii milyanka iyo barka ahaa inuu 200-300 kun istaago wax waliba dhulka ay galeen waxa burburiyay dhaqaalaha dagaalku wuxuu dhaqaalaha u gubaa sida dab u xaabada u gubo wax kasta inuu ahaynba dagaal baynu ku jirnay runtii anaguna intiina la doortayba 4 sanadood iyo jajabaan ahayna mar maanu neefsanba hadalkan Camey ayaa ku soo beegmaya xilli dhaqaalaha Puntland uu hoos u dhacay muddadii ay xafiiska joogeen isaga iyo madaxweynaha maamulkaasi Cabdiweli Maxamed Cali Gaas kuwaas oo loo sababaynayo xiisadda colaadeed walow ay dadka qaar ay qabaan inuu musuqmaasuq ballaaran uu hareeyay maamulkaasi isla markaana hanaankii iyo habkii dawladnimo aanay xilligani jirin waxaanay wararku sheegayaan in xilligani maamulka Puntland ee majaraha u hayaan aanay diyaar u ahayn dagaal isla markaana ay doonayaan muddo kororsi xileed taasoo laga baqa qabo in marka la gaaro 2019 haddii ay dhacdo in maamulka Puntland ee ay hogaaminayaan in uu ka dhaco meeshaasi qalalaase iyo qulqulatooyin soo wajaha deegaanada ay ka taliyaan